step 1 haddaad rabto inaad carruurtaada ku darto guriga waxaad samaynaysaa waa inaad marka koowaad ogaataa inta qof oo rabto inaad ku darto hadduu hal yahay ama hadduu laba yahay ilaa 5 qof hadday yihiin kulli waa ku wada dari kartaa carruurtaada ku wada qori kartaa laakiin intaad qof dadka aad ku dari lahayd waa inaad soo heshaa weliba waa inaad isu sii geysataa waxyaalayaasha oo ka mid yihiin magacyadooda iyo addresskooda telefoonkooda iyo social security number iyo driver license ay leeyihiin intaad isku sii geyso haddaa intaad isu geysato that's step 1 way step 2 aan kuu sheegaya waxaa u baahan tahay wax loo yaqaano title company haddaad aado google aad title company near me wuu kuu soo saaray dhowr xabo laakiin haddaad ku nooshahay Mansour ku nooshahay waxaa jira company aan aniga aad u jeclahay aan la shaqeeyo loo yaqaano Title Smart ayaa waxay ku draft garanayaan form loo yaqaano transfer on death deed formka markay ku draft garayaan formka basically waxaa ku list garanaysaa inta qof oo aad rabto gurigan inaad ku qorto formkan ay ku draft garayeen waxaa ku qoraysaa qof walba oo aad jeceshahay aad rabto inuu guriga la wareego lacal haddii adiga tii alle ku imaato waxaa kaloo muhiim inaad ka fikirtaa dadkan aad ku qorayso dad oo ah just green card haystamiya oo hadhow mustaqbalka magacooda inay bedelaan may rabaan haddii taa arrintaasi haa tahay waa inaad ka fiirsataa waa inaad sugtaa in muddaha qofkaasi ilaa baasboorka uu ka qaadanayo sababtoo hadhow magaca isbedelay qofkii isma yeelanayo labada qof isma yeelanayo magaca hadduu bedelo ha dhalashadiina is yeelato laga yaabaa waxay hadhow soo cadday lagu dhaho haddana hawl kale kugu noqonaysa taasi waa dadka qaar ay ku dhacdan arkay okay waxaa kale taa hadday dhacdo waa step 3 waxa loo yaqaano sign and normalization waxa lagu samaynayaa waxaana ku samayn karaa kuwa title company-ga ama marka qaar waxay ku dirayaan county-ga qof kale inuu ku soo marqaati uu ka noqdo bay ku dirayaan tan afraad waxa lagu sameynaya waa record garanaya county-ga la geenaya county-ga laga record garanaya lacag fee ay jirtaa roughly $46 waaye bay ku kacdaa 46 to 100 maximum 81 waa usually haddaad degantahay Hennepin County, Dakota County iyo Scott County haddaad degantahay usually waa $81 maximum meesha ugu badan like usually waa $46 waay so kadib waa inaa u sheegtaa dadkan beneficiary-ga ah guriga hadhow la wareegayo waa ina u cadeysaa hadhow warqad baa uu soo siin doonaa mararka qaar warqaday kusoo siin doonaan warqadaas waa u gudbin doonto qof walba oo gurigaasi mustaqbalka haddii lacalaadi wax kugu dhacaan guriga dadkii la wareegi lahaa so like 5 maybe 6 7 8 bay waxay doonta noqon kartaa inaad dadkaasi la socodso muhiim waay waxaa loo yaqaana jira ayadana step 6 loo yaqaana jirta revocation or amendment ina waxay isbedeli kartaa haddaa rabto lacala beri ka maalin oo maskaxda inaad bedesha rabto aad dhahdo laakiin gurigayga qofka inaa ku wareejiyo ma rabo like dadka bini'aadamka maskaxdiisa waa isbedeli kartaa taasi waa samayn kartaa laakiin waxay noqonaysaa haddana inaad ku laabato title company-gii oo aad ka erase garayso like dadka aad ka baabiiso like for example wiilkeeda aad iskugu fiicnadeen hadda iskuma fiicnadeen ama gabadhaada isku fiicnadeen hadda iskuma fiicnadeen marka hore waxaa rabtay gurigiina ayada la wareegto hadda waxaa rabta like maya gurigayga ma siinayo qof kalaan iska siinaya haddaad masaajidkan siinaya so taa hadday dhacdo kale waa bedeli kartaa isbedelkaana waa samayn kartaa so literally waa that 6 steps waay insha Allah haddaad rabto guri inaa iibsato aniga waxaa ka soo qaban kartaa website-kayga sahanrealty.com haddaad rabto real estate investment ee ka mid tahay fix and flip buy and hold wholesaling subject to insha Allah iga soo qabo website-kayga sahaninvestor.com. Assalamu alaikum insha Allah na soo flow garee